godadada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatooradee sare godadada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatooradee sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg halka waxaanu kaga dhawaaqaynaa jamhad la magac baxday xaqdoon jamhadaasoo ay kaliftay cadaalad darro baahsan oo naga heshay maamulka Soomaaliland maadaamaanu taa aragnay waxaanu go'aansanay inaanu ka baxno gabi ahaanba maamulka Soomaaliland jamhadda waxaa ku dhawaaqay annaga oo ah beesha Muuse Bokor waxaanu garanay annagu maamulka iyaga jisano waxaanu qabanay inay looga qaado ciidankeeda goobaha aan iskale halkaa iyo xiis ilaa iyo berbera naga degan ilaa burco ilaa iyo toorkaado ilaa laascaanood ciidamada jooga waxaan leenahay ha looga qaado Somaliland waxa kaloo dhacday arrimaha nagu kalifay waxa ka mid ah markii la laayay saraakiisha iyadii guud ahaanba ugu horeeyo Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo lagu dilay berbera oo qaran dhani u tashaday dawladuna wax talaabo ah oo aanu ku qanacsanahay ilaa hadda aanay ka qaadin waxa ku xigay waxa lagu dilay laascaanood isna wax allaale wax laga qaado ma jirto kii ku xigay oo u dambeeyay waxa la yiraahdaa Xuseen Maxamed Saalax waxa lagu dilay tuulada Qarmale ilaa hadda wax allaale wax laga qabtay ma jirto taa waxa noo dheer caburin lagu hayo madax dhaqameedadayada guur madow oo kale habeen dhaweyto maxkamadda la soo qaabilo horena laba jeer horena waa la xiray waxaan leenahay lamana xili karo lamana caburin karo ta kale noo si dheer waxa kamid ah saraakiishayadii noogu jirtay ciidamada yana kuwaan hareera taagana oo anigu aan kamid ahay oo Somaliland si yar looga wada saaray qofba kabadana mid la mariyaan dawladda Soomaaliland waxay noqotay waxaanu go'aansanay inaanu samayno go'aanisu taag haddaanu nahay qaranka Muuse Bokor go'aanisu taag iyaga cid kasta aanu gacan saar la yeelan karo markaa jawaabtana cid kasta u furan tahay jeclaha hadda waxmada ciidamada u gaar kara anigu waxaan sarkaal kamid ah waxaan ayay xil guuto taa anigu haya dhaawac baa la kulmay dhaawacii ugu dhacay waxa la ila kaashaday in markaa cusbitaal ku maqan fakad laga soo diray oo la ii soo qaado magacaygii caaglahaan hadda raxmada daraadi caaglihii nibba igu haata bilo jaanka ciidanka qaranka wuxuu kaga qaatay 5 milyan 5 milyan sideed baan nahay sideed diin jaanka halku kaga talaabsan lahaa dambiilaha inuu ka waajib qaato oo sharciga mariyo wuxuu ku urursaday inuu mushaarka ka daboosho halkii uu ka soo saaray 5 milyan عداد هكذا مريس إذا كنا ساسو بربر وكارانتيس أدي بوليس هاي أدي ملتري عيب وقوة أنت كلام وصوت وأنا أقول بقى أنا عيدا غبتي عليه حدا مصاب بكر هكذا يدمن من السنيان وعيب يصير على كوسا بيرك فد فغدا على قالي قبل كالسناك كالبيت كده جمعت ما تلك شوفته كل واضي مرح مصاب بكر iyadoo wixii kaliftay ay sheekeen saraakiisha joogtay eero joogtay aanay waxba ka tagin waxaan ku daraynaa ciidamada ka jooga fadhigaab eelaf weyn garadag darar weeye in si degdeg ah uga qaato 3 gudahooda
muddadaasaan u qabanaynaa intaa wax raacda xasuuqii ka dhacay dadka shacabka loo geystay weli gacan ku dhiglayaashii ay joogaan ceeraf weyn aanay dawladdu wax tallaabo oo sharci ay ka qabatay aanay jirin taa waxa sii raacda eeriyana ay ka dhacday xasuuq ka dhacay iyana wax tallaabo ah dawladdu aanay ka qaadin jirinna waxaan leenahay muuse abukar waa badan yahay biciide oo keliya ayaa dee badan intay degaan cidda ay tahay biciide laftiisu talo uu ku qabsaday wax ku qabsaday ma waa in waxay googoostay koonfeed bacle wax la yidhaaho koonfeed baclaha biciide iyo ta dawladda ka soo jeedaba inaanu saanu gacan bira ugu qaban lahayn ayaanu halkan maanta hawsheeda ku haynaa taasoo biciide iyo dawlad iyo ragba say isu baran lahaayeen sidaa ay soo sheegeen mas-uuliyiintu jabhadda muuse abukar qaranka muuse abukar waxaan halkan ka sheegayaa oo kale oo somaliland u sheegayaa iyo waxa mas-uuliyiinta isku sheegaya waan mas-uuliyiin baan banahay madax dhaqameedkeega uu ka mid yahay boqor cismaan buurmud dib dambe laguma dhex jiri karo xarig dambena laguma xiri karo haddii ay wax kastaba ha ahaatee gacan bira baanu kaga jawaabaynaa dibna ugama lama ruqsan doono waxa ay waddo somaliland waxaan halkan kaga hadlayaa sida ay sheegeen saraakiisha iyo ciidanka muuse abukar annaguna haddaanu nahay madax dhaqameedkii siraadi waa soo dhaweynaa waan ku raacsannahay sidaa uga hadleen dawladda xaggeeda dawladdu waa 30 jir 5 madaxweynena waa soo martay 5 madaxweyne ee soo maray iyo dawladda 30 jirkaaba xaquuq baan ku eegayni oo dee waxa weeye dalka waa loo soo halgamay haddaan nahay qaranka muuse abukar waxba kama helin waxaan aan kulli milicsanaynaa raggaa naga sii jiga xaggaa iyo xaggiisa weyntan maxamed kureer la yidhaahdo inay iyagu xoogay dee nagaga dhow yihiin annagu wax su'aal baan tabanayna laakiin waxaanu lahayn oo dowladda 3 nin iyo la dilo la iska daayay waadii ugu dambeeyay sarkaalka armale miyaan armale dawladda aan waxba ka qaban kuwii kasii horreeyay waa la ogyahay sarkaalkii berbere lagu dilay oo kale waa la ogyahay waxaas oo dhan dawladdu waxa waxay ka qabatay iyo waxay tiri waxana u xidhan midna lama hayo kiilaas aan lagu dilay oo u dhaxay laba sarkaal waxyaabahaas oo dhan waa tabashaan waa aragnay inaan ma garanaysaa lagu tumanayo qaranka la yiraahdo muuse abukar saraakiishiina dee haddeed la wadalka kaga baxaya waan soo dhaweynaynaa ciidanka iyo jabhadda waan soo dhaweynaynaa waan wax baryaynayna wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh annagoo ah madax dhaqameedkii reerka anigoo ku hadlaya afkii garaadka guud ee beeraha habasjecel waxaan leeyahay ama xukuumadda muuse u sheegaya inaanay jirin kood in dalkiisa dib ugu galay maanta waxa weeye dalka waa loogeysuu yahay in qaybna dalkii la dhisayo dalkii mala wuxuu arkaa odaygu gedilay maaha gedilay annaguna reer samatermey dhaqanka iyagii waa loogeystaa loo gelayo odayga boqorka anagu garaada lama hadli karo haddii la eego koode waa garabka tallaabo sharciyaanu qaadaya ciidankan jabhadatan aad iyo aad baan u hambalyeelay waxaanu tari karno hiiliyo hooba beesha habar jeclo waxaan leeyahay laga taageero waa dawladda dhexaanu la xidhiidhaynaa puntland baanu la xidhiidhaynaa markaa waxaan idin leeyahay muuse wuu ogyahay sarkaalkii lagu dilay baashii wuxuu yidhi haddaan laga qaadanayntiyo waxa ha noqdaan oday dhaqameedku waa ka soo qayb galaan oo ah noqdaan xeer noo yaalla inaynu 3 nin isu dilo kowdhe
sarkaalkii cabdirasaaq yuusuf maxamed lagu dilay bahash qabiil ku tashaday gacan ku dhiglayaashii maanta ma xidhna hargeysa joogaan oogna qaar baa isaga sirdoon godadada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatorade sare godadada dhulkeenu habeenkay gilgilatee gudidii heshiise golaatorade sare taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed taladay ku gooyeen ama geeri aakhiro ama guusha nololeed wixii u geeyey gabadhyay balii sheeg gabadhyay bal sheeg